golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika 2 saacadood kadib ayay yeelan doonaan kulankii 993 waxaa looga hadlayaa arrimaha saddex dhinac oo ku wajahan Soomaaliya dhammaan waxa ay qusayn doonaan sida ku qoran kulanka golaha ama bilowga lagu gorfayn doonaa xaaladda guud ee Soomaaliya arrinta doorashada amniga iyo dibudhiska horumarineed ee Soomaaliya diiradda ayaa la saari doonaa muddo korin ay sameeyeen golaha shacabka taas oo ay u sameeyeen madaxweynaha iyo hay'adaha dawladda 2 sano waxa ay kaliftay kala qaybsanaan siyaasadda gudaha iyo beesha caalamka si weyn ayay uga hor yimaadeen qaybo ka mid ah saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya maalmo ka hor madaxweyne Farmaajo oo tagay dalka Congo ayaa ka codsaday madaxweynaha hadda haya hogaaminta midowga Afrika inuu qaato doorkiisa ku wajahan dhexdhexaadinta dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida Afrikaankuna ay noqdaan cidda xallisa arrinta doorashooyinka Soomaaliya Farmaajo waxa uu xilligaasi ku sheegay Twitter uu iclaamiyay in waxa ugu weyn ay doonayaan ay tahay in la bilaabo wadaxaajoodiyada qof kasta uu codkiisa dhiibto dhammaan doorashadu ay noqoto mid dhinacyada siyaasadda oo dhan ay ku qanacsan yihiin kulanka maanta waa mid xasaasi ah marka loo eego filashada ay ka qabaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda doorashooyinka ee Soomaaliya oo leh dhinacyo Soomaali iyo kuwa ajnabi oo danahooda eeganaya fiilla Soomaaliya waxay doonaysaa in golaha amniga iyo nabadgelyada Afrika ay isku raacaan jumla ahaan in loo sheegay in la xallin doono tabashooyinka taagan la abuuro jawi wada hadal iyadoo la magacaabayo ergey gaar ah oo gudoomiyaha golaha amniga ee midowga Afrika u qaabilsanaan doona xaaladda Soomaaliya sidoo kale urur goboleedka IGAD ayay doonaysaa inay yeeshaan door wanaagsan oo ku wajahan xalinta dhacdadan waxay taasi u aragtaa dawladda federaalku guul weyn oo siyaasadeed gaar ahaanna waa dhacdo dilan siyaasadeed ku ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wan oo hadda dareemaya wajigabax siyaasadeed markii arrinta uu hore ugu qaabilsanaa hadda midowga Afrika ay u muuqatay inay la wareegeen golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa aragti ahaan waxa ay maalin ka hor isku raaceen in midowga Afrika uu yeesho deerka hogaaminta arrinta doorashooyinka ee Soomaaliya urur goboleedka IGAD iyo Afrikaankuna ay noqdaan kuwa wax xallinaya Soomaaliya oo taageero ergadeedu ay ka helayaan dalal ka tirsan IGAD waxa ay wadaan dadaal ay ku doonayaan in xubnaha dalalka uga helaan taageero kaasoo ilaa iyo shalay socday waxa ka sii horreeyay wadahadal la rumaysan yahay inuu dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha midowga Afrika oo toddobaadkan bilowgiisii dhacay kana wada hadleen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya wadahadalkaasi telefoon waa mid kale rumaysan yahay inuu dhabaha u xaaray in Farmaajo uu tago Congo lana kulmo madaxweynaha dalkaasi ee haya hogaaminta midowga Afrika Farmaajo waxa uu doonayaa in ergey loo magacaabo arrimaha doorashada Soomaaliya kaasoo arrimaha ku xalinaya gudaha dalka la kulmi doona dhinacyada oo dhan waxa uu kale oo uu doonayaa in la magacaabo xubin ka soo jeeda IGAD dalalka Afrikada dhexe ama galbeedka Afrika dalal kale oo ay ka mid yihiin Djibouti Kenya iyo Masar waxay aad u doonayaan in arrinta lagu celiyo golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Afrikana la xaqiijiyo inaysan door weyn ka geysan karin xalinta xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya dalalkan qayb ahaan waxa ay hayaan xilligan fiilla Soomaaliya qayb ka mid ah waxa ay dalka Soomaaliya ku haystaan dhul muhiim ah Kenya waxa ay cod ku leedahay golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa joogitaana halkaas ayay u aragtaa inay tahay fursad ay kaga argoosan karto Soomaaliyada xilligan si weyn ayaa loo dareemayaa arrinta kulanka waa mid xiiso leh waxaana eegi doonaa sida dhinacyada loolankooda uu kala guulaysto sidoo kale dalalka ay ka mid tahay Djibouti Kenya iyo Masar waxa ay cayilinayaan aragtida ku saabsan in dib loogu laabtay heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar isafgaradkii Baydhabo ee 16 February ayadoo oo la xiganayo kulankii ugu dambeeyay ee golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo codka mucaaradka ee gudaha Soomaaliya ka imaanayo awood siinaya in heshiisyadaasi ay noqdaan kuwa taabagal ah lagana laabto 2 sano ee muddo kororsiga ah ee ay sameeyeen golaha shacabka Soomaaliya